dhammaantiin waan idin salaamayaa meeshaad igala socotaan waa youtube-kaga haddaad hore iila soconin soo dhawaa rukuna ka noqo waa ka hadhin youtube-kaga maanta arrin yar baan ka hadlayaa oo baraha bulshada gabar soo gasho waxaa la dhahaa inanta magaceeda Fatima Brambur ayaa youtube-keeda la dhahaa horena waan u dhageystay ayaamihii dambena waan dhageystay arrin kusoo siyaaday marka maadaama bulshada aan fikirka ay la wadaagto iyo informationka oo dhageysta aan ka mid ahay waxa aan ka fahmay baan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo waxaan rajaynaya iyadu inay dhageysato asxaabta kale say u arkaana inay wax ka dhahaan mid waxaan samaynayaa hordhac caruurta soomaalida laga qaato yurub aad bay u fara badan yihiin ma aha marka loo fiiriyo bulshada kale ee ajnabiga ah soomaalida ugu badan bulshooyinka caruuraha laga qaato waxaana degan dadyow badan oo kala duwan oo ajnabiya oo madow muslin ah sideen oo kale madow ah muslin ah iyo madow aan muslin ahayn iyo Syrian iyo carab kale oo muslimiina Pakistan dadka dhan baa leh laakiin bulshada oo ugu badan oo laga qaato caruurta inta la qiyaaso ama qayladeeda ama qalamaadaaba aan luqadeena ku hadalno waa dadka Soomaaliyeed haddaba waxaan markaa bulshadaas ayay waxay ka mid tahay Fatima Brambur gabadha la dhaho caruurta waxaa loo qaataa waxa weeye waa caruurtoo dacwoota runtii waxaa kaloo loo qaadan karaa goobaha waxbarashada sida xanaanada caruurta ama iskuulka oo ay ku arkaan dayac maxaa la dhahaa macallimiintu markaana waxay u gudbin karaan caruurta dhibaatada haysata si loo caawiyo hay-adaha ku shaqo leh oo caruurta qaata okay haddaba arrintaasaa jirta marka sharciga caruurta in la caawiyo oo waalidku markay dhibanan yihiin ee caruurta dhibaan in caruurta la caawiyo waa sharci ka horreeya Soomaalida iyo dadka muslimiinta labadaba muddo dheer oo ay degsadeen dowladaha Yurub ama aanimid qaxootiga u yimaadeen dadyoogo waa sharci ayagu ay samaysteen sidii u badbaadiyaan caruurtooda caruurtii in la badbaadiyo way mudan yihiin oo dowladdu waxay dowlad ku tahay dhibaatada ka dhex dhacda shacabka markaa meesha degan ama bulsho meel degan inay dowladdu mas'uuliyaddeeda qaado soo arrintaas bay ka mid tahay marka caruurta ay ka mid yihiin waana arrin fiican arrin xun maaha in caruurta la badbaadiyo haddaba waxaan usoo gudbaynaa marka caruurta sababahaasaa loo qaataa waa idiin soo sheegay guriga inta layska yimaado caruur layskama qaato waxaa loo qaataa in caruurta lagu arkay tacaddi for example jirdil ayagoo hurdoonaya iskuulka oo hurdo fiican aan helinin ayagoo xanaaq badan iyo dagaal badan samaynaya waxyaabahaasaa loo qaataa loo dabagalaa caafimaadkooda oo liita waxaas baa loo dabagalaa waalidku markaasna waxaa la sameeyaa dabagal kabacdina caruurta waalidka waa laga qaadaa haddaba markaa waxaan u gudbiyaa arrinta Fatima Brambur waxaa laga qaatay 7 caruura sidii hore marka hore inala wadaagtay markii dambena waxaa laga qaaday gabar ay umushay oo isbitaalkay ku umushay oo iimaan la dhaho oo yar waxaana haysata markay saa u dhashaan laga qaaday sida iyadoo inoo sheegtay iyo shiiqa magaalada la degan oo informationka inda siinayay maalin habeen marka laga qaatay sida ay u dhashay naaskana may nuujin okay anigu intaan la yaabay waxa weeye Faadimo horta qodobka koobaad markaad rabtid dadka inaad siisid information ama war aad u gudbisid waa inaad hadal la tafaftiran aad u gudbisaa bulshada haddaaba go'aansatay in aad rabtid inaad la wadaagtid dhibaatadaada dadka ama farxadaada maxaad ula wadaagaysaa marka dhibaatada kugu dhacda dadka loola wadaagaa buraha bulshada kow inay wacyigelin noqoto oo dhibtaa inay jirto tan labaad inay bulshada ku caawiso oo support aad ka heshid intaasaa loola wadaaga inay arrintaana jirto dad kale ayna ku dhicin arrintaa marka ma wacyigelin bay noo noqonaysaa haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed oo anigu aan ku jiro ma ka hadlay Faadimo inay noo soo gudbisay war xaqiiq ah marka fiidiyoada la dhageysto hadalka markay bilowdo inta badan waxay ku dhamaysaa
inay cibaadaysanayso cibaado haddaa taqaanaan inay subxaanalaysanayso ilaahay inay baryayso hadalka oo warka oo tafaftiran oo aad xiise u qabtid horta qodobka koowaad ma soo gudbiso maanta dhan waxay samaysaa iska daba meeraysi marka anagu faado markaan waxaan daawanaynaa sawirkeeda iyo qosolkeeda iyo iclaankay soo marsato mise waxay noo soo gudbinaysaa information taas su'aal bay iga tahay oo maxay ku taraysaa hooyooyinka Soomaaliyeed oo ka qaban kartaa waxay noo sheegto 7 caruur in laga qaatay markii koowaad markii dambe gabadheeda yareed laga qaatay reasonka ay noo sheegto oo laga qaatay waxay sheegtay gabar yar inay dacweysay gabadha yarta oo dacweysana waxay ku sheegtay inay saaxiibadeed gabadhu ay ahayd markaasna ay tiri cuntaan idin siinayaa ord saaxiibada ha tagto okay mawduuca yaroo kowda inala soo wadaagtay hadduu macquul yahay baan wax yar ka oranayaa ilma yar oo ilmahaaga dariska hadduu kuu yimaado maxaa loo baahan yahay inaad samaysid oo gabadhaada saaxiib la ah oo xilliga cuntada la gaaray oo aad cunto karisay ama qada ama casho waxaa qurux badan oo dhaqanku dunida inta badan ay yihiin waxaa weeye inaa ilmaha weydiisid ama Yurub dhaqankaagu nib inaa weydiisid ilmaha inay rabaan inay caruurtada la qadeeyaan ama ay la casheeyaan oo loo ogol yahay waalidkoodu u ogol yahay ma la casheynaysaa heblaaya way casheynaysaa gabadhayda ama way qadeynaysaa marteena la qadeyso waalidka ma kuu ogol yihiin haddii ilmaha teleefon haysa inay waalidkeed weydiiyaan u dhahaan waxaan joogaa qoyskii saaxiibaday ma la cuntayn karaa ay damaanad qaataan inaad weydiisay ilmaha cuntaday cunayaan inay energy ku qabaan waxaa jira caruuraha qaar wax lows leh waxyaabaha caanaha leh inay xanuun ka qaadaan marka waa inaad weydiisaa waxa ay caruurtan inay loo ogol yahay amase inay xanuun ku qabaan kabacdina aad la cunteeya gabadhaada ayaa quruxa markay wada cunteeyaan oo ay wada baashaalaanna haddii labada waalid ogolaadaan inaa waalid kala weydiisa miyay seexanaysaa caawa halkan mise waan soo dirayaa oo ilmihiiba aada weydiin adiyo waalidka aad lahaataan xiriir aad yeelataan labadii waalidkii martiga loo ahaa iyo waalidkii ilmihiisa ka maqnaa marka halkaa waxaa ku fiicnaanaya qaabka inay ilmaha saaxiib ay helaan wada shaqayn labada waalid dhexdooda ah baa waxay noqonaysaa arrin fiican faadu markaa taa maxay ka doorbiday ilmo yar oo gabadheeda la eg oo gabadheeda ay ku faraxsantay inay cayriso bannaanka u cayriso halkaa waxay ku tusinaysaa inaysan fiirin farxadda gabadheeda inaysan xusmaynin gabadheedii yareed inay ka hoos baxday kolleyba way ka hoos baxday hooyooyin sidaa sameeyana way jiraan soo halkaa waxaan ka garanayaa faadimo arrinta ku dhacday inaysan hooyooyin kale ku dhicin oo aad haddii caruur wiil saaxiiba ama wiilkaaga saaxiib la ama gabadhaada inay caruurtu saaxiib helaan aad bay u fiican tahay saaxiibku hadduu saaxiib xun yahay waalidka kala hadli kartaa in waalidkiis iyo waxa laga samayn karayo ilmaha laakiin marna ilmuhu wuxuu ogyahay saaxiibkiis wuxuu dareemayaa inuu dadka ugu jecel yahay sirta ku qarsado farxad uu ka dareemo soo caruurteena saaxiibadood waa inaan halkaa ilaalinaa taasaan ka baranaa marka fadun buraanbur arrinta amay samey way ka hoos baxday caruurtii waa la qaatay 7 caruur ayaa laga qaatay 7deeda caruurta markaa oo laga qaatay sidee bay u handalgaraysay sidee bay booliiska iyo hay-adihii la qaatay faadimo uga shaqaysa may noo sheegtay faadimo inta badan waxay noo soo gudbisaa inay ayadu maxaa la dhahaa wada shaqayn fiican aysan ka dhexaynin qoyska caruuraheeda haya wiilkeeda ayaa hadda maqan marka wiilkeedana waxbaan ka oranayaa laakiin su-aasha aan mar walba isweydiiya waxay ahayd faaduma nin bay leedahay haddii labada waalid mid uu ilmaha dayaco oo ilmaha laga qaato waalidka kale ilmaha ma badbaadin karaa waa inaan isweydiinaa waayo waalid kale u badbaadin waayo haddana waxaan isweydiiyey aabbahan show ma dhalin caruurtan 7 oo la qaatay su-aasha kaloo aan isweydiiyey waxaa weeye marka caruur lagaa qaato sidaan ognahay Yurub oo mas-uuliyad daro lagugu eeday inaad dambiilo tahay caruurtada lagaa qaato ilmo kale haddaad dhashay ma laguu daynaya maya way ogtahay hooyo kasta waay ay faadimo buraanbur u samaysa arrintan 7 caruur ayadoo ka maqan waay ay cunug 8 u dhashay ay u samaysay
way fahansaneed hadday nin leedahay in ilmaha difaac laga sameeyo oo la xiran karo waxyaabaha ilmaha looga hortago markaa soo ugumay talagelin ukunteedii oo ilaalin karto inay bannaanka usoo saarto soo kamayna dooro in la qaato oo murugta ay fiirsato murug miyuu arkaysa markaa arrintaa Faadumo ay samaynaysay wasla garana samaha su'aalaha waa inaan isweydiinaa tanaan wacyigelinta ugu daray arrintan oo wada gabdhaha haddii ilmo lagaa qaato hooyo aad tahay oo ilmaha ay kaa maqan yihiin oo ilmahaga lagu keenin inaad ilmo dhashid waa wax caqliga loogiska waxaan ahayn waayo waxaad og tahay in lagaa qaadanayo haddaadan ogeyn anaa hadda kuu sheegaya waxaad tahay eedaysane kiiska lagu soo eedeeyay dadka lamaada wadaagin ilmahaagii ayaa mas-uuliyaddooda gabtay haddaa ilmo kala dhashin ilmahaas kale waxaa la rabaa in la badbaadiyo soo waa lagaa qaadanayaa soo haddaadan ogeyn hadda ogow fideogaygan markaa ilmo kale ha dhalin intaa ilmahaaga kala badbaadinaysid ha isku dhalin ilma la'aan may haynin oo carruur badan bay haysatay 7 carruur waa carruur aad u fara badan sidee macquul ku tahay markaa inay arrintan ku dhacday Faadumo Bravo tan kale aan la yaabay waxaa weeye wiilkeedii ayaa lumay sida inoo sheegtay wax badan oo information nagama siinin sidii lagu yaqaano waxay samaysay inay iyadoo cibaadaysanayso oo alla barinaysa inoo soo gasho inoo soo duubto wax badan nagama sheekaysay arrinta ku dhacday waxay inoo sheegtay bilowg wiilku intuu safakanin arrinta wiilkeeda in wiilkeedu ka cabanaya reerka hayay in wiilkeeda lagu qasbay hilibka loo yaqaano doofaarka arrintaa Yurub ma ka dhacdaa marka anigu waan ku beeninayaa Faadumo in carruur lagu qasbo hilib aysan cunin taana waa qodob been cad ah wax caddaynayna Faadumo uma hayso haddii arrintaa ku dhacday Faadumo waxay leedahay looyaro carruurtuna waxay leeyihiin looyaro haddii reer qasbay ama carruurta xumeynaya ma dhici karaan haa way dhici kartaa laakiin sharcigu miyuu qabaa may markaa waxaa loo sheegayaa looyarada dadka carruuraha loo dhiibo waxaa loo tababaraa qaabka ay carruurta u ilaaliyaan waxaa kaloo loo sheegaa inay ilmaha ilaaliyaan cuntadooda aysan aqoon aysan siinin waxaa loo sheegay inay ilaaliyaan diintooda waxaa loo sheegaa hadday eeyaha iyo waxaa necab yihiin inaysan guriga eeya joogin wax walbo ay carruurta guriga ku dhibaya maadaama la rabo carruurta inay waalidkooda dayacaan oo waalid fiican ay helaan xanaano fiican waxaa dhan waa laga ilaaliyaa marka doofaar ilmo lagu qasbo ma jirto Yurub runtii taa waa qodob aan la yaabay oo la argagaxay in ilmo doofaar lagu qasbi karo Faadumo waxay noo sheegtay wiilkeeda inuu gaajo u baktiyay waxaan ka soo qaadanaa hadalkeeda inuu run yahay marka la u noqonayaa haddii hilibka guriga laga cuno doofaar uu yahay ama qaansiir waxa loo yaqaano ama giriis waxa lagu dhaho anagu aan ku niraahno Scandinavianka hadduu yahay hilibka kaliya guriga la keeno ma hilibkaas kaliya u gaajoonaya digaagii meeyay soo digaag lama keeno soo kalluun looma keeno carruurta soo rooti ma yaallo soo caano lama keeno soo fruit iyo qudaar ma lahan sidee bay ku dhici kartaa inuu gaajo u baktiyo wiil 16 jira ama 17 jira oo cuntada oo dhan guriga la keeni karo qofku hadduu cunuga kaliya uu diiday inuu qaansiirka cuno wuxuu helayaa cuntooyin kale soo halkaa waxaa ka baxaysa inay dhahdo cunugu gaajo u baktiyo arrinta waa arrin runtii aan sal iyo raad lahayn oo been cad ah oo maankeena iyo caqligeena midna aan geli karaynin cunugan uu helayo cuntooyin kala duwan sidaa inii soo sheegay haddii cunugu ka cabto doofaar muxuu samayn karaa wuxuu sheegi karaa looyaradiisa hooyadana wuxuu sheegi karaa looyarada wuxuu ka caawinaya wiilkeeda Salmaan inuusan guriga ku faraxsanayn ama familka ama cuntada markaasna dawladdu waxay samaynaysaa in process bay qaadanaysaa waa laga bedelayaa reerka haya iyo cuntadaba dadku way is dhageystaan sharci baana meesha ka jira Faadumo waxaa loo ogolaya waxa la sanfaarka ilmaha inay u tahay waalid ay tala ka bixiso la kulanto ay aragto marka ayadoo dhinaca sharciga u mari karaysa iyo looyarada waxay u mari kartaa in ilmaha cabashada ninka ay ka cabanayaan laga bedelo arrintan looyaraduna ay ka caawiyaan
waxay inoo sheegtay markaa cunugii waxaa dhan laguma samayn wuu baxsada ayay tiri Faadumo markay inoo sharaxayso wiilkeeda ilmahaagii oo dhowr iyo 10 jira oo meel ku ogeyn maxaa dareemaysaa waa inay kaa muuqataa murugo waa inay kaa muuqataa walwal waa inay kaa muuqataa naxdin waa inaad isdhahdaa sidee buu noqon karaa intaasba maanan ka arag hooyada wejigeeda kamaanan arag wax muuqda oo hooyo ilmaheedii laga qaaday haddana cunugeedii uu lumay kama muuqato runtii innaba kama muuqato fideosheeda dhammaan markaan daawaday hal marna ma noqonayso emotional hal marna murug ma muujinayso umay samaysna dadka murugooda okay eri waxaa jira ay tiri anigu waxaan ku soo ooyaa guriga okay taana waxaan qaadanaa run inay tahay oo inaa media ku ooya ma jecli markaa waxaan kasoo qaadanaa run inay tahay haddaba markaa qiyaas markaad bilaadan tahay oo ilmahaagii aad sharaxaysid dadku u sharaxaysid dhibaato ay markaa ku sugan yihiin si walba aad u qariso murugtaada soo murugtaadii ilmadaadu sooma daadanayso markaa tahay qof beer le iyo ma garanaysaa normal ah baan ka hadlaya haddaada qof see ku baada ahayn soo sidee baa markaa ku rumaysanaa inuu cunugan iska lumay cunuga Salmaan anigu sidaa iga dhadhacsan marka hadaladeeda fiiriyay Faadumo meeshuu jiro way ogtahay meesha uu cararay ayadaa ka dambeysay anigu sidaas baan isleeyahay markaan dhammaan daba iyo dacal aan daawaday hadallada ay sheegayso guriga ayay imaadeen batri boolisku guriga ayay ka baareen qof kastoo waarid haddii ilmo la waayo guriga laga baaraa meel walbay booliska ka fiiriyeen hadal aad tiri baa jira waxaa tiri wuxuu la xiriiraa ilmo waddanka laga kaxeeyo oo game la ciyaaraa ilmahaas waxaa rajaynaya wax ii caawiya soo waxaad moodaa xiriir dibadda ah inaa u samaysay oo cunuga aad ogtahay meeshuu jiro anigu saas leeyahay waa ogtahay meeshuu jiro absolutely waa ogtahay qof kastoo caqligana saasuu dareemi karaa haddaba haddii aad tahay hooyo samaysay hooyo cunugeeda u diiday in laga qaado oo wiilkeeda iyo iyada wada shaqayn ay ka dhexeeyeen oo wiilkeeda badbaadiso lacag inta siisay meel kala geysay oo booliska u cag wareejinaysa wiilkeedana og meeshu uu jiro oo lacag siisay oo dhaqaale siisay oo kabacdi la ogaaday inaa wiilkaaga badbaadisa ani agteeda waxaa ka noqon doonta hooyo geesi ah waayo waxaad diidan tahay waa diidan tahay in ilmaha laga qaato waa diidan tahay dabcan soo haddaaba boolisku u cag wareejinaysid oo wiilkaaga aad lacag siisay oo aad og tahay wiilkaaga meeshuu jiro oo aad wiilkaaga aad ku xirto dad kale ay la shaqaynayaan oo aad caawinaysay markaa oo aad samaysay balaan waxa loo yaqaan ama qorshe aad samaysay markaa qorshe fiican baa samaysay Faadumoy oo cunugaaga baa badbaadinaysa in hooyo cunugeeda badbaadisan dee waaba sax ee ma aha okay waxaan ka dhigayaa markaa dhinac kalaan ka fiirinayaa saa sheegayso ma ogid cunugaaga aad wuu cararay arrintana waxbaad ka ogtahay wiilkaa waxaa tiro teleefon ma haysto teleefon waa u qaadi karaysa cunug weyn buu ahaa sidee buu teleefon ku hayn teleefon abulamaanga wax la dhaho umar walba meeshuu joogo qofka wici karo cunug 17 jir ama 16 jir sidee teleefon laan ku noqday su'aashaadii ku soo weydiinaya way ama dad kale macquulka lacag ma haysto ilmaha maanta Yurub jooga oo 16 jirkiis ka daa 10 jirka waxaa loo sameeyaa kaar akoon buu leeyahay akoonka markii la sameeyo hooyada ama qofka mas'uulka ka ah ayaa maamula lacag baa loogu turaa meel buu wax ka gadan karaya sidee buu markaa unan kaarna u lahayn lacag ma u haysan lacag haysan maaha laakiin kaar uusan u lahayn oo lacag loogu shubi karayn wax ku iibsado tan kale oo cajiibka waxaa weeye oo Faadumo aan la yaabanahay haddii arrintan waxba ka ogeyn ilmahaagii oo baxsaday inaad ku farxadid maxay tahay gacantaada kuma jiro gacanta dawladana kuma jiro wiil yar oo 17 jir ah oo lacag aan haysan oo Yurub ku dhex baxsaday yuu u yahay halis yuu u geli karaa soo murug kala ma ahan kooxda gangsterku u geli karaa siduu lacag ku helo jirkiisu gadan karaa in la fuulo siduu lacag ku helo ku noolaado ama waa la kufsan karaa ilmaha yarka ah oo waxa lagu sameyn karaa misbrook xadgudub baa lagu sameyn karaa soo wuxuu cuno u helo
ama qasab baaba loo xoogi karaa wuxuu noqon karaa tuug gaangis ah oo dadka dhibaateeya dhaca cunug dowladdiina ka tegay adiguna aada gacantaada ku hay sidee macquul ku tahay marka waxaasoo walwala isagoo jiro oo halis ah oo ilmo yarna u baxsan yahay inaad normal iska tahay oo markaad inoo soo gudbinaysid aad boolisku u aragtid inay kaalintoodi gabeen camal oo kaleo khosol ay kula tahay oo si fariidnimaa u sheekeynaysid sidee baa arrintaa ku dhacday waa arrin yaab leh oo ama kaag leh runtii aad bay yaab u leedahay dhammaan hooyooyinka ilmaha laga qaato iyo waalidiinta ilmaha laga qaato inta badan ma soo gudbiyaan maxaa la dhahaa information maxaa la dhahaa ma soo gudbiyaan sababta ilmaha looga qaato oo saxda ah 100% lagama helo waalidka waa lay gardaraystay eedayn baa lagu soo oodiyey balaabalaa waalidka soomaalida sidaa ognahay annagu aan kusoo kornay iyo waalidkaanba way dilaan ilmaha suxun bay u dilaan way ku xadgudbaan hadal bay dhahaan waxaa markay dhaceen waxaa la rabaa inaad runta u sheegtid hay-adaha carruurta si lagu caawiyo oo aad dhahdid dhaqankaygaa sidaan baa kusoo koray aqoontaydu waa sidaan waxaan waan sameeyey oo aad qiratid waalid walbo soomaalida maxkamaddu wuxuu inkiraa wuxuu sameeyey ayadoo cadeymo lagu hayo dhakhtarka caddeyn laga keenay xanaanada caridaayn laga keenay dariska caddeyn laga keenay ayuu inkiraa okay waxaan usoo noqonaynaa ninka faadimo buraanbur qaba faadimo waxay leedahay nin bay leedahay haddaba ninka ay leedahay carruurta miyuu dhalay I don't know inuu dhalay wax information badana kama hayo inuu carruurta aabbahood yahay laakiin waxaan u malaynayaa inuusan carruurta dhalin hal marna maanan ka maqal asagoo carruurtaa ka hadlaya waxay la tahay markaa ilmaha dambe oo ay dhashay oo la qaatay gabadha yarta ah inuu asagoo aabbo u yahay haddii gabadha yartaa la qaato asagoo aabbo u yahay sidee buu u badbaadin waaya marka su-aasha meesha taala wey haddii hooyada qayr muslimo lagu haystay aabbaha uu nadiif yahay sooma badbaadin kara gabadhiisa yartaa ma hayn karo aabbaha faadimo buraanbur ninkeeda ayaan weydiinayaa marka arrintaa iyo aabbayaasha kaleba haddii hooyadu dembiilo noqoto aabbuhu ilmaha dacwad buu u furan karaa hadduuna wax dembi aan lagu hayn waana la siin karaa waa loo ogolaan karaa haddii aabbaha uu dhalay carruurta maadaama example baa bixinaya ama faadimo ninkeeda oo aabba u yahay carruurta markay dayacday hadduusan ka celin oo ay dhahaan aabbuhu waxbuu ka ogaa hooya markayna dayacday asaguna wuuna dili jiray markaa boos uma bannaan labadan waalidba dowladda agtooda waxay ka yihiin dambiilayaal haddaba ninkan hadduu carruurta adeer u yahay ilmaha yarkaan uu dhalay muxuu ugu dacwan waayay gabadhiisa yarta markilaan su-aashaa ku celinaya sidee bay maaquul u tahay inuusan waxba inaysan ka muuqan wax maaragtay walwala ama hadal weligii inuusan nala wadaagin ba asagu wax dhiba inaysan ku haynin arrinta waa arrin aan la yaabay arrinta faadimo dhammaan waalidiinta waxaan kula daldaalmayaa soomaaliyeed carruurta inayna dilin oo u naxariisataan dhaqankii hore lagugu soo koriyey oo dilka iyo hujuumka iyo ahaana inaad iska daysaan waddamadan joogno sharci maaha in carruurta la dilo la habaaro gabdhaha keliya wax loo diro dabaasha laga reebo carruurta gabadhaada saaxiibadeed in la cayriyo ama wiilkaaga saaxiibadiis waalidiinta caddaanka waxay aada ugu dadaalaan inay carruurtooda saaxiib helaan may fiican tahay inay carruurtu saaxiib helaan haa way fiican tahay waxay u fiican tahay ilmahaaga depression kuma dhacayo cabsi kelinimaa kuma dhacayso ciduu sir la wadaagu helayaa qof kasta wuxuu u baahan wiil iyo gabarba ilmo uu la sheekaysto oo la ciyaaro uu ku kalsoonaado uu ka soo dhawaysto dadka kale annaga dadka waaweyn saa ugu baahanaya qof saaxiiba oo aan la hadalno ayay ilmuhuna ugu baahan yihiin marka waxaan kusoo gabagabaynaya ilmahaaga saaxiibkiisa cayrinin arrinta faadimo waa arrin iga yaabisay oo aan la tacajabay oo meelo badan aan ka fiiriyey faadimo waxaan kula dardaarmayaa haddaa go'aansatay inaad informationka dadka la wadaagtid carruurtaada information fiican oo dadku wax ka baran karaan la wadaag si hooyooyinka kale iyo carruurta kale oo ugu noqdo inay wax ka hortegi karaan laakiin haddaad subxaan allah allahu akbar gaaladii waxa dhacay
naxdinta dhac oo laba erey ka sheegto waxa kugu dhac wax kalena aad sheegin maxaa laga barto Soomaalidu subxaanallah way taqaanaa Allahu akbarna way yaqaanaa waxa dhan way garanayaan miyay u baahan yahay halka inta soo fariisatid inaad subxaanallah Allahu akbar dhahdid oo 100,000 oo jeer aad ku celisid video walba aad leedahay oo video halka ku soo marka ma wax laga baran karaa maya laakiin xaq baad u leedahay inaad sida u hadashid haddaad laakiin wala fikirkaaga laakiin haddaad rabtid wax laga barto sida wax barasho ma ahan sida hooyo iyo aaba kale kuma badbaadinaysid ma siinaysid wax ay sameeyaan hal mar maada ka shallaaynin maadan dhihin maalinta koowaad inaan gabadheedu u diido saaxiibadeed oo cayriyo ma ahayn marna maadan fiirin ninka hadda ku qaba muxuu caruurtaada ka badbaadin karaa muxuu samayn karaa maadan la wadaagin talo maxay idinla tahay adinka ama qofii arrintan ku dhacday oo talo iga siin karo siduu u guulaysta ma jira marna maadan dhihin adigu information fiican ma soo gudbisid information fiicanna ma raadinaysid soo waxaa rajaynayaa waxayd aragtidayda dhaleecayn maahan gabadha baraha bulshada ku jirta waana dhegaystaa laakiin waa waxaan la yaabay waxaa macquul noqon weysay cunugaaga oo maqan inay hooyo iska soo qashasho oo halkaan fadhido oo ay maaragtay wax normal u aragto inuu cunugeeda fakaday halis waxaad ugu jirtaan kusoo gabagabaynayaa Faadimo in xabsi lagu geeyo oo lagu xiro dawladda sidaad ku socotid haddaad ku socotid haddii la ogaado inaad wiilkaaga fakisay wiilkaagana dib loo soo helo aadan haddana dawladda u sheegin wiilkaaga meeshuu jiro yani waxay la tahay inaad og tahay oo kabacdi la helo maxaad mudan kartaa marka hore waxa lagu weedeeyay ilmahaaga markii dambe inaad ilmo yar aad u horseeday beelahda oo adoon ku hagaajin dad ehela adigu aadan haynin dawladdii iyo waxbarashadii iyo iskuulkii iyo wax walba u xaq u lahaana iyo caafimaadka ayaa ka qaaday xilli waxaa lagu jiro halisa corona waa halis u yahay kufsigu waa halis u yahay in la furuxmeeyo waa halis u yahay in daroogo lagu gato waa halis u yahay soo haddii aad ka dambaysay inaad Salmaan duurka gelisay oo booliiskuna ay ogaadaan inaad Salmaan duurka gelisay waxaad halis u tahay in xabsi lagu geeyo oo markaa maxkamad lagu keeno dambina lagu xukumo haddii lagu xukumo maxaa kugu dhacaya Faadimo inta Yurub sharciga ka jira aad iyo aad dumarka ama haweenka laga qaata caruurta haddii la xukumo oo ay xabsi mutaan oo dhowr sano xabsi iyo magdhow lagu xukumo waxay waayaan sharciga waddanka xaaladuna way ku adkaataa markay sharciga waayaan sharcigiyo kaa maqan adoo xabsi galay 8 caruur oo dhashay waa arrin halisa arrinta ka fiirso Salmaan meeshuu jiro waxaa talay tusaale uga ah inaad booliska la shaqaysid consequence ayay leedahay hadalladaada boolisku maaha inayna turjumayn maaha inayna kula socon waxaa jira video aad leedahay taleefanka ha iga soo wacinina dadkayga iyo qaraabadayda taleefanada waa la dhegaystaa waxa qofku caqli ma laha miyaa boolisku markaa information ayaa Salmaan ka ogtahay waxaa diidaysa dadka inaad la wadaagto oo hadalkaa soo baxo so haddii Salmaan markaa qorshaha balaanka u balaangaraysay uu socon waayo oo Salmaan boolisku ay soo helaan ama Salmaan uu dhibaato ku dhacdo cunugaagi ah dambiil ayaad noqonaysaa Faadimo Buraanbure runtii waa sidaa qofka kaliya anu waxaan ahay runta kuu sheegaya dhammaan dib u baar waxyaabaha la xukumay iyo hooyooyinka la xukumay iyo sidii ku dambeeyeen imise gabdhood baa la xukumay oo xabsi galay oo sharcigan laga ceshtay haddaan kuugu daro intaan hal iyo labo waxaa jirtay hooyo caawisay ururka argagixisada oo 5 caruur lahayd oo la xukumay baasaboorka laga ceshtay way iska joogtaa dalka Norway bay ka dhacday dawladdu waxay dhaheen ma celin karo waa halis in hadda waddanka lagu celiyo waxay la sugayaan waddanku inuu fiicnaado maanta caruurteeda waa la qaaday magdhow baa lagu xukumay ma haysato ayaduna waa sharci daro ayaduna waa sharci la'aan baan ku sheegaya waxaa jirta hooyo kale oo ilmaheeda lagu eedeeyay inay nafta ka goysay gabar yar oo ay dhashay caruurteedii uur bay leedahay sidaadoo kale ilmahay dhashana waa laga qaaday inta laga umuliyey xabsigay ku jirtaa xabsiga markuu dhawaado dabcan ayaduna sharci ma haysa caruurteedana waa la haystaa arrintaas Salmaan waa arrin halisa caruurtaada waxaan kugula dardaarmayaa 2 example baan kuu soo qaatay waxaa jira hooyo labaad oo caruurteeda dishay iyaduna oo xabsi la geliyey magna lagu xukumay caruurtooda looga qaatay dilkana caddeyn baa loo hay dhakhtarkeeda caddeeyey ilmahana ka cararay daaqada ka booday oo ka carara ka fakaday sharcina waddanka kuma leh ilaa hadda arrinta markaa anu waxaan kugula dardaarmayaa Salmaan meeshuu jiro booliska u sheeg si uuna Salmaana waxbarasho la'aan cunto la'aan qabow
iyo asagoo la kufsado ama daroogo lagu iibiyo inuu ugu dhicin si uusan u dhibaatoonin waa wiil weyn wiilkaa u caqli celi haddii reerka reer xun yihiinna meel kale ha loo bedelo waxaa dhahdaa dad kale ha loo bedelo arrinta allada soomaalidu ma haynayaan carruurteeda baa mid kaa odhanaya videoga waan dheereeyeen soomaalidu qofku markuu carruur haynayo waa inuu haystaa guri ku filan waa inuu haystaa dhaqaale waa inuu u leeyahay xirfad uu soo bartay kuuska ama cashirka sibinaarka uu soo qaatay sida carruurta loola dhaqmo sida carruurta loo koriyo sida carruurta loo naxariisto luuqadan uu wax ka garanayo marka waxaan ku leeyahay faadimoy walaal macaanto waxaan ku leeyahay faadimoy markaa carruurta looma dhiibi karo sorry carruur looma dhiibi karo maxaa la dhahaa qof aan intaa garanayn guri aan haysan asagoo ceyr qaata lacag ku filan aan soo gelinin dowladda cashirkaasna aan qaadan oo carruur kale badan haysta oo soomaaliya looma dhiibi karo waxaa jira dadka soomaaliyeed waxay dhaheen arrintada booliiska hana soo gelinin arrinta booliiska iyo dhibaatada hana soo dhexgelinin waayo waxay la daalan yihiin toodii carruurtooda kaliya walwalayaan ayaga baan khibrad fiican oo carruurtooda ku xanaanaya dadka badankooda aynan lahayn dhaqankeenii baan la nimid halkan wax badan kama garanayno sida naloo soo koriya baan rabnaa inaan usoo korino dhaqaale fiicanna ma haysano dalkii iyo luuqadii iyo culture nagu cusub iyo bayaan nagu cusub iyo hawa nagu cusub ay dadku joogaan so taa baan kaa leeyahay dadka raba oo shaqaysto oo soomaalida oo luuqadana garanaya kuushashka carruurta lagu qaato ama siminaarada lagu barto sida carruurta loo hayo ha qaataan sidaa u haysaan carruur kale intaas baan kusoo gabagabaynaya anigoo kaa hadhiina waxaan ka dhiibanaya aragti gabadha la dhaho Faadon Brambur meesha igala socoto waa YouTube-kayga wixii fikra ku darso arrintaa waan idin salaamaya walaashay waxaan ku rajaynayaa inaad guulaysatid laakiin saa ku guulaysan lahayd waa inaad falankeeda qabataa adigu sida carruurteeda ku badbaadin lahaydna waa inaad adigu falankeeda qabataa haddaa badbaadin kartid wixii kaa qaldamayna waa inaad saxdid aad baan idin salaamaya maalin wanaagsan